بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada xaaja official aniguna Cabdiraxmaan Xasan Cumar waxaa halkaan igu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur oo suuqa laga celinaya kadib Maxamed Kudus oo ay kala soo wareen West Ham United haddana xidig kale ay heshiis la gaareen oo ay la wareegeen. maxaa laga leeyahay Thomas Frank macalinkaas sidoo uu maaday naadiga kubadda cagta Tottenham bandhigeeda suuqa kala iibsiga aad u sareeya haleedhis ayuu taanyaa in booma xataa loo shekanaya. sidoo kale waxaa la soo saaray xidigaha ugu caawinta badan ee kadib haritaankii Real Madrid gaaritaankii finaalka wax walba u baahan tahay ee Club World Cup. Real Madrid oo weli la hadalhayo qaabkii loo reebay mucjisadii ku dhacday bandhig xumadii Xavi Alonso oo ka dhiidhiyay qaradaadka naadiga ka jirna ogaaday. warkaas oo dhan ayaa nigu soo gudbi doona. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar laag dhasiin share gare haddii aad naga daawanayso barteen YouTube-ka haddii barteen Facebook aad naga daawanaysana follow iyo like iyo share nagu dhiirigeli oo na gaarsii meel sare mahadsan. wararkan waxaa ku bilaabi doonaa mahadcelin ku saabsan gaaritaan 500 qof oo subscribers ah oo channelkeena gaare. mahadsanida ayaa idin leeyahay intaas ka sii wada intaas waxa ku soo gaarna dhiirigelin dhankeena ka imaatay waxba maahan wax yar oo maanta aan ku bilaawday beri waxay noqon doonaan wax badan insha Allah. tilaab ina qaadina ayaa ka xigto ina gool gaartid idinka ayaa wax nagu ahay mar kale haduu channel ku soo gaar subscribe aadan aheenin waa ka codsana ina subscribe dhaado ina gaarsiisid 1k insha Allah. tilaab ku xigto 500 maadaama aan soo tilaabsanay kunka ayaa haddana wadadeeda ku socnaa 1k subscribers insha Allah kamisoon oo doyla raal ka noqdo idinka madaxiina wax ku naanay bal bushgareeya on the way. wararkan waxa ku bilaabi doonaa naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa suuqa galgelayso maadaama Kudus ay soo bandhigtay in u xirtay nambarka 20aad halka haddana 24 saac soo socota la soo bandhigi doono heshiiska ee la gaartay Morgan Gibbs White oo ka imaaday Brentford. macallin Thomas Frank wuxuu leeyahay naadiga anaa dhisanaya iska dhaafa koob ma qaadeen mar abaarta ma ka baxdeen anaa dhisanayo faraha iyaga qaada. marka waa arki doonaa Tottenham Hotspur soo ka dhigo Maxamed Kudus ayaa la soo bandhigay asigoo xiran nambarka 20aad Morgan Gibbs White waxaa leeyahay 24 saac soo aadan dabka ayuu soo saaran yahay waa la soo bandhigi doonaa nambarkiisana dib aa laga arki doonaa haddii inta muuqaalka duubeen oo soo baxana waa ka Neil soo socodsiin doona insha Allah. laakiin Morgan Gibbs White Thomas Frank Maxamed Kudus intaasba waxaa Tottenham Hotspur ay ku soo biireen kadib ceerintii la ceeriyay macalinkooda. sidoo kale wararka suuqa kala iibsi waxaa ka mid ah Victor Osimhen ayaa la sheegaya in wax walba oo diidan yahay inuu ku biiro naadiga kubadda cagta Manchester United kaliya waxaa wacad inuu ku biiro naadiga kubadda cagta Galatasaray. sidoo kale wararka suuqa kala iibsi waxaa ka mid ah xidiga garabka bidix ee daafac ugu dheeli jiray naadiga kubadda cagta Benfica ayaa ku biiray naadiga kubadda cagta Real Madrid asigoo bandhigiisii wixiisii la soo shartay doono. waxaa leeyahay ninkaas warkii waa dhamaaday markaan wuxuu tagay naadiga kubadda cagta Real Madrid waan la xaqiijiyay wuxuu ku biiray Real ka imaaday Benfica qiimo lacageed dhan 50 milyan lacag yar maaha laakiin waxaa jira gunooyin kala jiraan leeyahay marka Karesna waa ku biiray naadiga kubadda cagta Real Madrid. sidoo kale xidiga reer Faransa Theo Hernandez ee ka tirsanaa naadiga kubadda cagta AC Milan garabka bidix ee daafaca ayaa ku wareegay qiimo lacageed dhan 25 milyan asigoo ku wareegay naadiga kubadda cagta Al Hilal ee ka dhisan dhankan Sacuudi Carabiya. wax walba isku dhamaadeen iska dawareeg badan iyo diidmo badan ee labada naadi ka dhaxeysay iyo ciyaaryahankaba hadda way soo ilaatay 5 milyan ay kula wareegeen wuxuuna ka degi doonaa Sacuudi Carabiya asigoo kula biiri doono Inzaghi macalinka hore Inter Milan. Nuno Madueke waxaa la xaqiijiyay oo lagu dhawaaqay ku biirista naadiga kubadda cagta Arsenal. Nuno Madueke ayaa ka tagay naadiga kubadda cagta Chelsea asigoo markaan ku biiray Arsenal asigoo ku wareegay qiimo lacageed aad u sareeyo sida la soo warinayo in 50 milyan uu kula wareegay Arteta xidigaas. marka waxaa leeyahay Nuno Madueke ku wadatayna balhooda 50 milyan keena waa laga qaatay Chelsea ayaa qaadatay 50 milyan Madueke wareejiyeen
wax walba isku dhamaadeen. Nuno Madueke waa xidig ka tirsan naadiga kubadda cagta Arsenal. Arteta marka ninkan waa ugu filan yahay dheeb iska fadhiisa waa aragnay season soo socda. Sidoo kale marka waxaa la soo wariyay cilaaqaadka ka dhaxeeyo naadiga kubadda cagta Arsenal iyo Chelsea xidiga noocee ay kala qaateen markii laga soo bilaabo inay saxiixdaan Arteta sidoo Arsenal u imaaday waxaa la dhahay 130 milyan ayay geliyeen ciyaartooyda ka imaato naadiga kubadda cagta Chelsea. waa kuwa xidigaas Kai Havertz ayaa ka mid ah oo 65 milyan ku imaaday, Jorginho 12 milyan, Kepa Arrizabalaga 5 milyan, Nuno Madueke 50 milyan, Raheem Sterling oo amaah asigana. marka wax walba waxaa leeyahay ma Arteta Chelsea bismiya aragtaa waxaana lacag marka oo ku bixinay waxa fiicneed bahal weeryahan inuu bixiyo lacagtiisa oo suuqgal weyn sameeyo soo indheeyo nin ka bixi karo Premier League Arsenal anfici karo la jaan qaadi karo ciyaartooyda da'yarka Arsenal u joogo sida Bukayo Saka, Odegaard, Martinelli ciyaartooy badan ay joogto oo wax la jaan qaado goosh u dhaliya. marka waxa leeyahay Arsenal iyo Chelsea suuqa ka dhaxeeya Chelsea kii ka duqoobiro ama kii ka halaaba isleedahay ku qaaraji. hadda seasonkan waxaa Nuno Madueke iyo Kai Havertz iyo maxaa la Kepa Arrizabalaga ayaa isla suuqa ku baxeen. sidoo kale wararka waxaa lagu soo waramayaa in uu fursad u heli karo inuu ka tago naadiga kubadda cagta Chelsea. Nicholas Jackson ninkan oo shaashada caalamka ah kadib Brazil oo qaatay Carabao Cup kulan ka tirsanaa waxaa leeyahay ninkan Chelsea waa isdaayeen markan kulan walba iyo dabeecad xumo iyo wax ayaa lagu arkay. Jackson marka fursad ayuu u muuqataa leeyahay oo ka tagi karo naadiga kubadda cagta Chelsea asigoo lala xiriirinayo naadiyaal ka dhisan isla Premier League. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa ceeb weyn ku dhex jirto kadib 40 maalmood oo laga soo wareegtay ama laga joogo markii Manchester United hadal ee la furtay naadiga kubadda cagta Brentford iyo xidigooda Mbeumo 40 beri bil iyo 10 beri ugu yaraan ka soo wareegtay wax natiijo aan ma ka jiraan ayaa leeyahay. marka wax walba oo Manchester ka socdo waxaa leeyahay qaab nooc kale ugu socda waa laga yaaban yahay wax la dhameystiran ma lahan wax oo natiijo fiican laga sugayna ma jiraan. sidoo kale waxaa la soo saaray update-kii ugu dambeeyay oo ah 10 sare ee FIFA ranking ee lagu sameeyay xulka kubadda cagta oo kala qiimeeyay la soo saaray. waxaa kaalinta koowaad ku jiro Argentina oo daafacanayso koob adduun. sidoo kale Spain soo gashay kaalinka labaad, Faransa kaalin saddexaad, England kaalinta afraad, Brazil ayaa kaalinta shanaad gashay, Portugal lixaad, Netherlands oo toddobaad, Belgium 8, 9 Germany, Croatia ku jirto numberka 10aad ee lagu soo xiray top 10ka 10 sare ee FIFA ranking ee lagu sameeyay xulka kubadda cagta. sidoo kale wararka suuqa kala iibsi waxaa ka mid ah Jordan Henderson ayaa ku soo biiray naadiga kubadda cagta Brentford qaab free ah asigoo ka yimid dhankan iyo Ajax. marka waxaa leeyahay wax walba waa isku dhamaadeen markan wuxuu ka mid yahay xidigaha Brentford hogaami doono season soo socda waliba laga yaabay in kabtanimada xataa loo magacaabo ku soo dhaw Premier League asigoo wajihi doona naadigiisa hore ee Liverpool season kale iyo jug kale iyo halis kale geemam kale waas arki doonaan. sidoo kale wararka suuqa kala iibsi waxaa ka mid ah Jadon Sancho. wax update-ka ugu dambeeyay waxay sheegeen inaysan jirin wax dalab ah oo ka imaaday naadiga kubadda cagta Juventus ee ah qaaditaanka ama inay qaataan ciyaartooy Jadon Sancho xulka qaranka Ingiriiska u dhashay naadiga kubadda cagta Manchester United haatan u dheelo. Sancho marka waxaa leeyahay Juventus danka ma lahan wax xaajana ugu jirtana ma lahan walo leeyahay ciyaaryahan ay u soo bandhigi doontaa Manchester iyo lacago si ay u qaataan Sancho laakiin waxaas hadda waxba kama jiraan ayaa la yiri. sidoo kale wararka suuqa kala iibsi waxaa ka mid ah Marc Asensio ayaa lagu soo waramayaa xidiga naadiga kubadda cagta PSG sanadkan ka ciyaaray horyaalka Premier League. naadiga kubadda cagta Aston Villa ayaa qarka u saaran ama heshiis la gaaray inuu ku wareego Fenerbahce iyo macallin Jose Mourinho. waxaa loo soo bandhigay projectiga Jose Mourinho oo ka doonaya naadiga Fenerbahce asigana waa aqbale kaliya waxaa la sugayaa inay isfahmaan labada naadi
PSG iyo Fenerbahce wax walba ku saabsan heshiiskaasna marka laga fiiriyo dhanka personal waa okay ayaa leeyahay. marka waxaa la filaa inuu dhankaas iyo Turkiga aado Asensio oo ku wareersanaa naadiga kubadda cagta Aston Villa. markana xidig kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon ayaa lagu soo waramayaa in qaati bilaa oo ka taagan yahay naadiga kubadda cagta Arsenal. waxaa ogeyn in ay soo laabteen wadahadaladii meel xun ee kusoo dhamaadeen wakiiladii ka socday naadiga kubadda cagta Arsenal u socday inay heshiiska kasoo dhameeyaan naadigaas si ay u soo saxiixdaan Yogeres. marka Yogeres waxaa leeyahay hadda wax walba u sameynaya inuu Arsenal ku biiro, laakiin Arsenal waa isdabaalinaysaa. Arsenal meel iska dhig, Manchester United ayaa doonaysa ciyaaryahankan, laakiin asigaaba diidan in wax walba oo Manchester ku saabsan laga xiro si uu ugu biiro naadiga kubadda cagta Arsenal. Arsenal shiina ma hayo ninkan inuu suuqa ku xirmaa keedli iska naqdaaya wax walba. marka la leeyahay Yogeres iyo Manchester over waa isku dhamaadeen ayaa leeyahay. kaliya option wuxuu haystaa inuu ku biiro naadiga kubadda cagta Arsenal ama inuu batatan u dheelin naadiga Sporting Lisbon. go'aan noocaas ayuu gaaray. waa arki doonaa xiisaas meesha ku dhamaado. update-kii ugu dambeeyayna waa inuu diiday wax walba, heshiis walba, wada hadal walba ka socda naadiga kubadda cagta Manchester United may ayuu dhahay. sidoo kale wararkeena waxaa ka mid ah qiimeyn la sameeyey 5 sano lasoo dhaafay horyaalada qaaradda Yurub ayaa lagu soo bandhigay in xidig ugu fiicnaa uu yahay Kylian Mbappe. sidee ninka hadda Real ku wareersan wax walba qabse isla aan qabse karin ayaa hadda waxaa leeyahay 5 sano lasoo dhaafay qiimeyn la sameeyey Kylian Mbappe ayaa ugu fiican. sidee Kylian Mbappe ayaa sameeyey goolal iyo caawin inta ugu badan 5 sano lasoo dhaafay. 5 sano lasoo dhaafay 5 horyaal ee Yurub asiga ugu badnaa. meequu sameeyey? wuxuu sameeyey Kylian Mbappe 182 gool iyo caawin iskugu jirto. waxaa ku xigay Harry Kane oo asiga sameeyey 175 oo goolal iyo caawin isku leh. Robert Lewandowski waa yeelka ayaa ku jiro 172 ayuu sameeyey. Mo Salah ayaa ku jiro. Mohamed Salah xidiga naadiga kubadda cagta Liverpool iyo xulka qaranka Egypt ama Masaarida 169 ayuu sameeyey. waa kee marka ciyaaryahanka oo ugu fiican 5 sano lasoo dhaafay? Ronaldo, Messi waxba kama jiraan. marka waayihii waa ay soo dhamaadeen. Mbappe waqtigiisa lagu jira, laakiin waqtiga saaciiday lacnikan. waa ogeyn in PSG oo ku wareersanaa haatan Real uu imaaday. haddana Real oo islaha Yurub iyada quwad ku haysato oo waxba ka waayay. wararkii ugu dambeeyay hadda waxay leeyihiin naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa bayaan cad ka soo saartay kadib kulankii PSG ee 4-0 ku dhamaaday. waa la canaanta leeyahay. marka canaan kadib waa arki doonaa Xavi Alonso iyo maamulahooda Real Madrid waxay ay ku soo kordhiyaan iyo ciyaartooydiisa ka yeelaan. laakiin waa la canaantay, bayaan cad laga soo saaray xil ciyaareedka soo socdo maadaama uu Xavi dhahay kii hadda wuxuu ahaa dhamaadkii Ancelotti, laakiin ani waayay hadda la bilaabo rabaan. sidoo kale waxaa la shaaciyey in kaliya 2 naadi ay soo afjarid karto inay qaado naadiga kubadda cagta PSG 6 koob. waa naadiyaashii waa Chelsea oo la ciyaari doonta finaalka Club World Cup iyo Superkaabaha Yurub oo la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta Tottenham oo soo qaatay Europa League. intaas iyo amaana alla. haddii channelkeena uu kugu cusub yahay fadlan subscribe, like, share. haddii barteena Facebook ka daawanaysiin follow iyo like iyo share inta uu nagu dhiirigeliyo nagaarsiin meel sare. mahadsanidin 500 ee nala joogto. waxaan rajeynaa isbuucan soo socdana 1000 inaan gaarno. mahadsanidin.